السلام عليكم داوديال كسر هذا channel-keena iftiinsha maanta waxaan halkan idinku sharxi doonaa film American comedy science fiction ah oo lagu magacaabo Idiocracy daawasho wacan bilowga filimku wuxuu ku jaan go'an yahay inuu sanadku yahay 2005 bilowga filimkana cod ayaa inoo sheegaya in bini'aadanku gaadhay barta loo yaqaano bartiisoo noqoshada inta badan aragtiyaha sayniska ah ee khiyaaliga ahina waxay tilmaamayaan in bini'aadanku uu sii horumari doono caqligiisuna sii kordhi doono balse maadaama bini'aadanku gaari doono halkii ugu sareysay ee caqligiisa kadib wuxuu bilaabi doonaa in caqligiisu aad hoos ugu dhaco ilaa iyo uu ka gaadho halka ugu liidata jiilba jiilka ka dambeeyana uu noqon doono mid ka sii caqli liita haddaba iyada oo jiro warwarka xaaladahaasi ayaa askari Maraykana oo ka shaqeeya arkiifyada ciidamada laguna magacaabo Joy Bowers waxa uu yeedhay taliskiisa sare iyaga oo uu sheegaya inuu qayb ka noqon doono tijaabo cilmiyeed aad u muhiim ah balse Joy wuu ka biyadiidaya waayo wuxuu hore u qorshaystay inuu iska sii joogo arkiifyada tan iyo inta uu ka howlgabayo balse wuxuu sameyn karaa iska yar sababtoo ah waa askari waana inuu qaato amarada kadibna muuqaalka xiga waxa la inageenaya goob uu ka dhacayo shir gaar ah oo qarsoodiya kana qayb galayaan saraakiisha sarsare ee militariga general lagu magacaabo Colonels ayaa fikradiisa u soo bandhigaya saraakiisha kale waxaanu u sheegaya in saynisahanadu hindiseen oo ay sameeyeen mishiin seexinaya oo kaydinaya jirka bini'aadanka caqligiisana sida ku haynaya ilaa sanado badan oo la sheegi karin haddii ay tijaabadani guuleysatana ibn aadanku ay ku kaydin karaan culimadooda hadda joogta ee ugu caqliga badan kadibna ay dib u soo toosin doonaan waqtiga bini'aadanka caqligiisu hoos u dhac sameeyo waana sababta markii hore ay saraakiishu ugu yeedheen askarigii Joy si uu u noqdo qofka koowaad ee lagu tijaabiyo mishiinkan maadaama uu caqligiisu yahay mid dhexdhexaad ah sidoo kalena uu yahay askariga kaliya ee militariga ku jira ee aanay family ku tiirsanayn sidoo kale waxay u baahanayaan gabadh ay iyaguna tijaabadan ku sameeyaan oo Joy wehelisa balse kama heli karaan gabadh sax ah amba ku habboon oo militariga ku jirta hadda sidaa darteed wuxuu Collins soo bandhigayaa gabadh jirkeeda ka ganacsata in loo qaato tijaabadan laguna magacaabo Rita waxaanu tusayaa sawiraan isaga iyo ay ku wada jiraan managerka Rita iyaga oo wada caweynaya balse ma farxad gelinayso qof kasta oo ku sugnaa goobta gunaanadka warbixintiisana Collins wuxuu soo jeedinayaa in fikradda si practical Britol loo hirgeliyo labadan shakhsi oo tijaabadoodu qaadanayso muddo hal sanana sanduuqa sida loogu rido isla markaana maadaama tijaabadani tahay mid gaar ah oo levelkeedu aad u sareeyo waxa la madnuucayaa saraakiishu inay la wadaagaan dadka kale maalinta ku xigtana Joy iyo Rita waxay ku sugan yihiin qolka waiting-ka Joy wuxuu isbarayaa Rita waxaanu weydiinayaa iyadu qaybta ay ka soo jeedo amba ka shaqeyso iyada oo qarinaysa inay sheegto inay tahay gabadh jirkeeda ka ganacsata waxay u sheegaysaa inay tahay painter amba qof artist ah kadibna labadoodaba waxa la jiifinayaa mishiinkii tijaabada Rita xasilooni darra ayaa ku dhacaysa waxaana damcaysaa inay mishiinkii ka soo kacdo balse Joy ayaa dhiiri gelinaya una sheegaya saynisahanadu inay yihiin qaar hawshooda garanaya waxaanu u sheegayaa in mishiinka ay ku jiri doonaan oo qura hal sano taasina ay tahay mid aad u fiican ugu dambeynna mishiinkii ayaa labadoodaba si fiican loogu lingaxayaa laguna adkaynaya si kastaba ha ahaatee arrimuhu waxay xumaanayaan isla bedelayaan marka Collins la xidho sidoo kale waxa la xidhayaa managerkii Rita isagoo isagana lagu eedeynayo inuu dumarka ka ganacsado taasina waxay keensanaysaa in la waayo cid monitor garaysa amba ilaalisa sanduuqii ay ku jireen Joy iyo Rita fadeexadan weyn ee soo gaadhay saraakiisha ciidankana waxay sababaysaa dhammaanba in saldhiggii la xidho isla markaa xayndaabkii ku hareereysnaa oo dhanna la burburiyo Joy iyo Ritana waxay ku sii sugnaanayaan sanduuqii tijaabada iyada oo sanado badan halku bini'aadanku la sii kabcayo fikrado ducufnimo ah cabsi badanna ka muuqato isla markaa celcelis ahaana garaadkoodu uu marba marka ka dambaysa yahay mid hoos u sii dhacaya laakiin dad badan ayaa qaba fikradda ah in genetic engineering-ka iyo saynisku wax badan ka bedeli doono mustaqbalka iftiinna keeni doono waxaase la tilmaamayaa saynisyahanada ugu cilmiga badan uguna caqliga badan inay ku mashquuleen tijaabooyin saynis oo istubidnimo ah munaafacaad badanna aan samaynin sida timaha daata iyo waxyaabaha hamada kordhiya korodhka populationka ee aadka u sarreeya wuxuu isna la iman doonaa dhakafaarkiisa isla markaa hoos u dhaca ku imanaya garaadkooduna uu sii socon doono inta laga gaarayo 2500 sanadadaas oo aanay bini'aadanku awoodi doonin inay mashaakilaadkooda basic-ga xaliyaan sida qashinka oo kale taasina waxay keensanaysaa in qashinku isdultuumo 100 sano iyada oo qorshe xal oo aan lala iman doonin tan oo sababaysa marka la gaaro 2500 qashin qubkii ugu badnaa ee tuulma
haddaba maalin ayaa waxa dhacaysa buur qashin oo aad u weyn inay dildilaacdo oo ay burburto kadibna sanduuqii uu ku jiray Joy uu ku dhex dhaco guri waxaana sanduuqii ka soo dhex baxaya Joy oo daalan confused ah ninka guriga iska leh uu sanduuqu ku soo dhex dhacay oo la yiraahdo Frito wuu iska indhatirayaa sanduuqan gurigiisa ku soo dhex dhacay ee qashinka wata isagoo oo iska sii wadanaya TV show uu daawanayay waxa qura uu soo jeesanaya isagoo Joy ka codsanaya inuu sanqadha yareeyo waxa kale oo inoo muuqda qolkiisa fadhiga in musqushu ugu dhex taalo taasina waxay hawl fududaysi u tahay inaanu kicin ugu dambayn intuu istaago ayuu Joy banaanka ka saaraya Joyna marka uu dibadda u soo baxo adduunkiina uu arko wuxuu arkayaa adduun dawaqsan in badanna isbedelay sanad gudihii laakiin miskiinku ma oga inuu ku jiro sanadkii 2505 Joy waxa uu muuqanaya koox dada oo wadada dhinaceeda taagan isla markaana ku hadlaya hadal aan wanaagsanayn oo xum Joy isagoo fahansan waxa ay ku hadlayaan wuxuu isku dayayaa inuu si fiican ula hadlo balse way caayayaan waana cayrinayaan Joy oo daal badan iyo diif badan ka muuqato wuxuu go'aansanayaa cisbitaalka ugu dhow inuu tago marka uu reception-kii cisbitaalka gaadhana wuxuu u sheegayaa inuu nin askari yahay balse gabadha reception-ka joogta ma fahmayso waxa uu ka hadlayo waxaanay cadaadinaysaa button ku yaala miiska waxayna Joy ka codsanaysaa inuu u sii gudbo qaybta bukaan socodka ee midigta Joy oo weli dawaqsan iskuna dhex yaacsan ayaa isku dayaya inuu biyo ka cabo qasabada balse halkii uu biyo ka filayay waxa kaga soo baxaya sharaab energy oo lagu magacaabo Proudo kadibna shakhsi u dhow ayuu wuxuu weydiinaya halkii uu biyo ka cabi lahaa halka qofkii uu ku qoslayo lana yaabayo waayo iyagu biyaha waxay u isticmaalaan oo qura suuliyada waxaanu ogaanayaa qof kasta oo caalamkan ku nool inuu ku maydho cabo isla markaana baahiyahiisa aasaasiga u isticmaalo sharaabka energy-ga ee Proudo halkii uu ka isticmaali lahaa biyaha waxa kaliya ee biyaha u isticmaalaan waa musqusha waxaanu u gudbayaa qolkii baadhista ee dhakhtarka halkaas oo lagaga xidhayo tuumbo dhegaha afka iyo dabada isla markaa qofkii adeegga caafimaad u qabanayay Joy ayaa si khaldan wuxuu isku weydaarinayaa tuumbooyinkii uu ku xidhayay jidhkiisa Joy oo karahsan ayaa adeeggii shaybaadh loo dhammaynaya waxaana loo gudbinayaa qaybta dhakhtarka kadibna intii uu dhakhtarka sugayay ayaa wuxuu arkayaa joornaal ay ku qorantay dheedka ah 2505 balse wuxuu u fahmayaa in daabacadii ay khaladay dheedka ugu dambaynna dhakhtar ay ka muuqato ciyaal suuqnimo ayaa ka jawaabaya dhammaan su'aalihii Joy ee la xidhiidhay caafimaadka wuxuu dhakhtarka ka codsanaya u sheegayaana Joy inuu lacag fee ah oo gaarsiisan $5 milyan uu bixiyo isla markiibana Joy wuxuu arkayaa rasiidka lacagta oo ay ku qorantay dheed ah 2505 waxaanu xaqiiqsanayaa Joy inuu muddo 500 oo sano ah ku jiray sanduuqii mishiinka wuxuu istaagayaa daaqadda cisbitaalka isagoo oo arkaya adduunka la yaabka leh ee khalkhalka ah iyo muuqan magaalada ee wax badan ka bedelan yihiin waxa uu muuqanaya dhismayaal burbursan iyo dhismayaal kale oo ay isku hayaan xadhko isla markaana magaaladu la circiirayso qashin dhakhtarkii marka uu arko Joy gacantiisa inaanay ku ool shaambadii muwaadinimo aad yar ayuu u baxaya Joy oo baaxadegaya ayaa cisbitaalka ka cararaya intuu dhakhtarkii ku mashquulsan yahay wicitaanka booliska isagoo aan biilkii xitaa bixin Joy wuxuu ku soo hambaabirayaa adduun dawaqsan iyo magaalo isku dhex yaacsan isla markaana dhaqaalihii uu dayac badan ku dhacay khashinkuna buux dhaafiyay lana baabiyay agabkii raashinka filimka kaliya ee la daawadaana magaciisa waxa la yiraahdaa The Us filim silimooga ka socda oo Oscar lagu guuleystay ayuu daawanaya balse waxa la yaab ama kaab ku noqonaysa waxa weeye 90 mil oo xidhiidh ah oo uu daawanayay filimka waxa kaliya ee ka muuqday waxay ahayd daba qof amba kunto isla habeenkiina Joy waa la xidhayaa maadaama uu noqday garanwaa ama qof meel loo raaca aan lahayn kadibna maxkamadda ayaa loo gudbinayaa waxaana loo qabanayaa lawyer kaasoo noqday Frito ninkii la odhan jiray oo ah shakhsigii uu la kulmay markii ugu horeysay Joy lawyerkiisii Frito waa ku dhaleelayaa Joy dhammaan dadkii maxkamadda ku sugnaana qosol ayay la daadanayaan Joy wuxuu ka hadlayaa kiiskiisa iyo waxa ka dhigay bila calaamadda laakiin lawyeristkii iyo dadkii maxkamadda ku sugnaa way ku qoslayaan ugu dambaynna Joy waxa lagu xukumayaa inuu dambiile yahay waxaana loo gudbinayaa jeelka isla waqtiga Rita ayaa iyaduna sanduuqii ka soo baxaysa waxaana isku dayaysaa inay la hadasho managerkeedii iyo ninkay la saaxiibka ahayd laakiinse ma suuroobayso in xiriirkaasi uu hagaago sababtoo ah telefoonka ayaa waxa uu weydiinayaa inay $2,000 ku shubto
waxaase agteeda imanaya oo soo gaaraya shakhsi kale waxaanay ka qaadaysaa lacagtii si ay telefoonka ugu shubto isla markaa Joy waxa la geenayaa goob uu yaalo mishiin akhriya calaamadda taatuuga ee gacanta qofka kaga taala muwaadinimadiisana cadaynaysa mashiinkii wuxuu weydiinayaa Joy magaciisa halka uu Joy u sharxayo inaanu fahansanayn waxaan dhacaya kelmad Joy afkiisa ka soo baxday oo ah not sure ayuu mishiinka u qaadanayaa inuu magaciisa yahay dhammaan dadkii ku hareereysnaana waxay ugu wacayaan not sure kadibna Joy waxa la marinayaa imtixaan iyadoo la weydiinayo su'aalo badan balse basic ah dhammaan dadkii meesha joogan la yaab ayay ku noqonaysaa inuu Joy ka wada jawaabo su'aalihii la weydiiyay oo dhan waayo qof kasta oo iyaga ka midii ma awoodeyn inuu su'aalahan ka jawaabo intaa kadibna waxa loo qaadayaa xabsiga ugu dambayna wuxuu garowsanayaa qof kasta oo dunidan ku sugan inuu yahay mid nacasa waxaanu u sheegayaa gaarkii jeelka in ay tahay inuu jeelka maanta ka baxo doqonkii gaarka hayayna waxa uu ogolaanayaa Joy inuu cararo balse alarm ayaa ku tilmaamaya nin maxbuusi inuu fakaday kadibna ciidamada booliska ayaa cayrsanaya si kastay u adagtayna ugu dambayn Joy waa ka baxsanaya ciidamadii waxaanu aadayaa gurigii uu ku soo dhacay sanduuqiisu markii ugu horeysay ee Fita uu lahaa Joy oo aaminsan inuu qof sameeyay mishiin la yiraahdo the time machine intii lagu guda jiray muddadan 500 ee sano ah ee la soo dhaafay wuxuu weydiinayaa Fito inuu mishiinka u soo helo Fito oo aaminsanayn kana dhadhacsanayn inuu ka caawin karo inuu mishiinkan u soo helo ayaa Joy wuxuu ku sii adkaysanayaa arinta waxaanu u ballan qaadayaa inuu siin doono lacag 8 bilyan oo dollar ugu dambayna Fito oo damac adduunye qaaday ayaa odhanaya mishiinka meel ayaan ku garanaya isla daqiiqada booliskii raadinayay Joy ayaa albaabka ku soo garaacaya kadibna labadoodiba daaqada intay ka dhacaan ayay baxsanayaan oo aadayaan dhanka iyo museumka kadibna dariiqa ayay kula kulmayaan Rita oo weli isa suran yihiin ninkii lacagta ay ka qaaday Rita waxay soo galaysaa gaarigii iyadoo oo ka warwarsan saaxiibkeed inuu soo raadiyo sababtoo ah lacag ay ku lahayd balse kama warqabto inuu beri hore dhintay intay socodkoodii gaariga sii wataana waxa dhacaysa in mishiin gaariga uu akhriyo shaambadii gacanta kaga taalay Joy kadibna ciidanka booliska ayaa ogaanaya goobta uu ku sugan yahay isla markaa gaariga oo baytari isticmaalayay ayaa baytarigii dabka ka dhamaanaya intay ka degaan ayay fakanayaan isla markaana booliskii waxa uu soo gaaraya gaarigii oo iyaga ku jirin isla goobtii koox kale oo dada ayaa ku soo biiraya dagaal baana ka bilaabmaya meeshii halka ay Joy iyo Rita ay sii wadanayaan orodkoodii iyagoo ka rajo qaba inay gacanta ku dhigaan the time machine kadibna labadoodii waxay gaarayaan goob lagu magacaabo the Costco oo ah xarunta ganacsiga isagoo Joy xusaya inuu cilmiga sharciga ku bartay Costco intii ay ku sugnaayeen goobta sugitaanka ayaa Rita waxay aadaysaa musqusha soo laabashadeeda ka hor Joy waxa uu la kulmayaa in alarm uu ku qayliyo xusaya in qof dambiile ah uu goobta ku sugan yahay isla marka gaadiidka ay sugayeen uu yimaado Fito waa koraya halka Joy ogaya Rita ay boolisku qabanayaan laakiinse markan jeelka lama geenayo ee waxa la geenayaa aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka Joy oo dawaq badan ka muuqda ayaa wuxuu la kulmayaa madaxweynaha dalka oo lagu magacaabo Camacho iyo xoghayntiisa madaxweyne Camacho oo ku dheeleelaya lana kaftamaya Joy ayaa wuxuu odhanayaa madaxaagu inuu inta ka weynaado ayay ahayd sababtoo ah qof caqli badan ayaa tahay maxaa yeelay madaxweynuhu waa ka warqabay Joy inuu ka jawaabay dhammaan su'aalihii la weydiiyay taas oo qof kaste ka yaabisay maadaama iskoorkii ugu sareeyay ee la gaaro uu sameeyay sababtan awgeedna maadaama yahay qof aad u caqli badan madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Joy xoghaynta arrimaha gudaha Joy oo ama kaagsan aadna u yaaban ayaa waxay ku tilmaamayaan inuu yahay qofka ugu caqliga badan dunida kadibna dhammaantoodba waxay aadayaan aqalka baarlamaanka halkaas oo madaxweynuhu ku dhawaaqayo dhibaatadii ka haysatay cunto yarida iyo dabaylaha dhaska iyo qashinka wata inuu ka caawin doono xalin doonana xogayahan cusub ee la magacaabay magaciisuna yahay Mr. Not Sure isaga oo madaxweynuhu u ballan qaadaya haddii uu xoghayuhu xaliyo duruufahan jira laga cafin doono xabsigii uu mutaystay intaa kadibna waxa la qabanayaa shirka golaha wasiirada xoghayayaashna waxay weydiinayaan Joy inuu yiraahdo kelmado cajaa'ib amba cilmi ku salaysan kadibna Joy wuxuu ku dhawaaqayaa kelmado kooban oo ay adag tahay in la fahmo complicated ah taas oo qof kasta oo meesha ku sugnaa u qaadanayo inuu ninkan yahay nin aad u garaad badan kana caqli badan iyaga Joy wuxuu ka codsanayaa Fito inuu sawiro maam uu ku muujinayo halka uu yaalo time machine
in yar kadibna dhammaantood waxay u baxayaan goob loogu talagalay in midho laga beero. sidoo kale Joy wuxuu ka codsanayaa maamulka dawladda in Rita lagu soo daro waayo waxay ka caawin kartaa beeritaanka midhaha. hadda qof kasta wuxuu ku sugan yahay beerta loogu talagalay in midhaha laga beero, waxaanu si hoos ahaana Firito ugu dhiibayaa maamkii Joy. isla markaasoo Ritana ay goobta soo gaarayso. Joy wuxuu gaar ula baxayaa Rita, waxaanu u sheegayaa inay meesha ka baxsadaan iyagoo adeegsanaya maamka. balse qorshahaasi waa ka dhicisoobaya markuu arko Joy maamka uu siiyey Firito inuu yahay xariiqo wax micno aan samaynin. intaa kadibna Joy wuxuu ogaanayaa in beerta lagu waraabiyo sharaabkan enerjiga ah ee la yiraahdo Browdo halkii laga siin lahaa biyo. wuxuuna shir degdeg u qabanayaa golihii wasiirada isagoo oo u sharxaya in biyo loo isticmaalo midhaha halkii looga isticmaali lahaa sharaabkan baawarka ah. balse maamulkii joogay goobta waxay u arkayaan fikradan Joy mid khaldan. sidaa darteed halkii uu iyaga kala xaajoon lahaa waxa uu u sheegayaa inuu isagu dhirta la hadlayo oo dhirtu rabto biyo. inkasta oonu Joy aqoon u lahayn in sharaabkan ay ku jirto cusbadaas oo ku dhegaysa marka beerta lagu waraabiyo ciidda sare, isla markaana dhas badan qabsanaysa dhirtiina sidaa ku dilaysa. sidaa darteed dhabaantii waxa uu xalinayaa problemkii ka haystay beeritaanka. maalmo yar gudahoodna wax kastaba waxay u dhacayaan sidii qorshuhu ahaa, laakiin si aad u dhaqso badan ayaa waxa hoos ugu dhacaya iibkii sharaabka enerjiga ahaa ee Browdo, taas oo waxyeelo weyn u geysanaysa dhaqaalihii dalka. malaayiin dadka ka midana shaqo la'aan ka dhigaysa. waxaana ka dhacaya aqalka cad ee Mareykanka hortiisa mudaharaad rabshado wata. niyuusyada iyo wararkuna waxay sheegayaan in Joy la horgeyn doono maxkamadda maadaama shaqo la'aan dadka baday. dambiilana sidaas ayuu ku noqday. waxaana lagu xukumayaa hal habeen oo ciqaab ay u yaqaanaan dhaqan celin, oo ah goob fagaaro oo la iskugu soo baxay in qofka dambiilaha lagu ceyrsado gaadiid waaweyn. ciqaabtaas dhaqan celinta aana waxay inta badan ku dhamaataa in qofka dambiilaha baabuurka la tirsiyo oo sidaa ku dhinto. kadibna Joy waxa la geynayaa goobta fagaaraha ee ciqaabku ka dhacayo, halka Rita iyada oo murugsan ay White House-kii dib ugu noqonayso, iyada oo qorshaheedu yahay Firito inay la raadiso time machine-kii, halka ciqaabkii ka socday fagaaraha si live ah looga sii deynayo National TV-ga. kadibna Joy waxa lagu ceyrsanayaa gaadiid waaweyn isaga oo kaga wareegaya gaari yar. isla markaasna Rita waxa u muuqanaya oo ogaanaysa ubaxii uu beeray Joy ee biyaha uu waraabiyey inuu soo fiilay. waxayna xaqiiqsanaysaa fikirkii Joy ee ahaa in beeraha biyo lagu waraabiyo uu yahay fikir shaqeeyey. kadibna Firito ayay ka codsanaysaa inuu si degdeg ah ugu qaado goobta ciqaabku ka dhacayo, iyada oo qorshaheedu yahay in dalagan laga sii daayo TV-ga si ciqaabka Joy uu uga baaqdo. dhanka kale Joy weli wuxuu la dhacayaa sidii uga badbaadi lahaa gaadiidkan khatarta ah ee naftiisa dilaya. Rita waqtigii ku habboonaa ayay ku gaadhaysaa halkaa, iyada oo laaluushaysa nin kameramaana si uu u raaco Firito oo ay muuqaal uga soo duubaan geedkan soo cagaaray. kadibna waxay aadaysaa qolka controlka iyada oo la wareegaysa goobta laga hago studio-ga. ugu dambeynna Firito wuxuu gaadhayaa beertii, muuqaalkiina waa ka soo duubaya. geedkii soo baxay muuqaalkiisana waxa laga sii deynayaa TV-ga. isla marka uu madaxweynuhu arkana waxa uu joojinayaa dilistii iyo ciqaabkii lagu waday Joy iyada oo cafis loo fidinayo, taas oo dhammaan dadweynihii meesha ku sugnaa farxad gelinaysa. hadda qof kasta waxa uu ku sugan yahay xalfad heer sare ah oo ka dhacaysa aqalka cad, halkaas oo Rita shaaca ka qaadayso inaanay doonayn in dib ugu noqoto gurigeedii waayo waxay jeclaysanaysaa mustaqbalka ifaya, taas oo aad u la yaab gelinaysa Joy, balse kuma qasbayo Rita inay raacdo. sidaas ay isku sii macasalaameeyaan labadoodu. Joyna aanu weli bixin waxa fagaaraha uga yeedhaya madaxweynaha, isagoo madaxweynuhu ku dhawaaqaya hadda laga bilaabo inuu Joy yahay madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dalka. qof kastaana wuxuu ku eegayaa indho rajo weyn leh iyo mustaqbal ifaya Joy, taas oo Joy ka dhigaysa inuu weli sii joogo kuna sugnaado sanadka 2500. kadibna qof ayaa ugu wacaya time machine-kii. Firito wuxuu qaadayaa Joy oo wareersan si uu u geeyo mashiinka. ugu dambeynna markay goobtii gaadhaan waxay ogaanayaan time machine-ku inuu yahayba waxyaabaha ciyaalku ay ku dheelaan. kadibna muuqaalku wuxuu ina geenayaa dhowr bilood ka bacdi waqtigaas oo Joy loo doortay madaxweynaha United States of America, halka Rita oo xaaskiisa ah ay noqotay First Lady. hoggaankiisa cusubna wuxuu la imanayaa kobcinta beeraha iyo horumar hor leh, waxaana dadka gelaysa rajo ah in mar kale dib loola soo noqon karo caqligii fiicnaa iyo fikradii horumarka keenayay. madaxweyne Joy iyo Rita waxay iska dhalayaan 3 carruur ah, kuwaas oo lagu tilmaamayo 3 carruur ee ugu caqliga badan dunida. gunaanadka filimku wuxuu noqonayaa rajo fiican iyo horumar ifaya. fadlan daawada haddiiba aad nala dhammaysatay muuqaalkan daawashadiisa waxa hubaala inuu ku farxad geliyey kuna raaxaysatay. waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto isla markaana channelka Iftiinshe aad subscribe siiso. sidoo kale daawadayaal sida halkan idinka muuqata
dadka channelka muuqaaladiisa ama fiidiyoodiisa daawada iyo dadka subscribe-ka siiyay aad ayay u kala badan yihiin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe siisaan si muuqaalada si joogta aad ula socotaan waanad ku mahadsantiin intii subscribe-na siisay